السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka salaamayaa Soomaali oo dhan meel kasta joogto. Soomaali waan salaamayaa meel kasta ay joogaan adduunka joogaan caalamka. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka bacda salaan. Hay waxaan ka hadlayaa waddanka wadinka arkay wax ku soo kordhay dagaal ku soo kordhay. marka maxay ahayd Soomaalidu saasay wali soo dilaysaa. weli meel walba dagaal ka dhacayo Soomaalidu isdilaysa. dagaal aan joogsi lahayn ba ka socda gobolada dhexe. imika xagga kale bay la qaatay. marka gobolada dhexe waxa dadka wada diga oo walaalaha oo weligood wada digana isu awow iyo isu ayay wada ay isu habaryar iyo isu eedo iyo isu abti. oo dagaalka aan joogsanayn inta soo dhammaadada inta tira leeg soconaya. waxaan leeyahay maxay ahayd wax dhexdhexaadiye ma la waayay. wax dagaalka kala qawajiyo kala dhex gala ma la leeyahay. maxaa la isugu daawanaya dagaalka inta soconaya oo dhalinyaradii ku dhamaatay oo dadkii waaweynaa ku dhamaadeen dagaal aan joogsi lahayn. lama arag ummad islaam oo walaalaha intaas dilaysa. ilaahay dhiigga islaamka ma banaynin qofka islaamka inuu qofka islaamka dilo. waa ka xaaraantinimeeyey ilaahay dhiigga islaamka dadka islaamada waa kala xaaraantinimeeyey. Soomaaliya waxay ka dhigatay dhiiggii ilaahay baneeyeyba. waxay ku leeyihin weligaa inu isdilayno. weligaa waa isdilaynay waana isdilaa. ma is weydiisay sababta isu dilaysaan waxay isku dilaysaan. waxaa isku dilaysaan ma garanaysaan. waxaa isku dilaysaan waxaan micno lahayn. waxaa isku dilaysaan wax maalan yacni ah. waxaa isku dilaysaan waxaan la garanay. shaydaan ba idinka dhex shaqaynaya. kalena tegi maysaan kalena guuri maysaan halkiina wada degan tihiin. qolana wax ka dhacan mooyaan waxma soo kordhayaan. wax idinka dhacan mooyaan wax idin soo kordhayaan ma jirto. iyo dhalinyarada alaysaan iyo dinkii cadaabku intii wax dhishayna cadaab bay ku mudanaysa. aakhiro xagga gelaya ilaahay xaraam ka dhigay dhiigga islaamka. marka waxaan la yaabsanahay ummad islaameed caynkaas wax kala qabtana la leeyahay. muddo dheer baa dagaalkaas soconayaan maqlayno. weliba ayaamaha kale la leeyahay kii ugu daraa waa dhacay. waa tiya diinta diin banaysa inaa saas u dishaan saas u dhacdaan. oo habeenii maalin dhiig islaameed la daadiyo. khaaf rabbukum baan leeyahay khaaf rabbukum ilaahay ka baqa. Soomaaliya ilaahay ka cabsada ilaahay ka baqo dhiigga islaamka joojiya. waa isdaba qabto dhiigga islaamka joojiya ilaahay ka cabsada. waxaan nolol maaha. war wixii ku dhawow islaam oona kala cesho kala qabto dadka. dagaalo kala waa minka waddanka kusoo kordhay dagaalo dawlado waaweyn isku leynayaan. waxaa isku dilaysaan awood bedinkaan doqonnina waxaan hayna isku dilaysaan ma jirto. lama garanayo waxaa isku dilaysaan. hadday isdishaan mid wada gurigiisa jooga hadhowto. intay dhimatayna waa dhimantay. inta kalena cadaab bay ku mudanaysaa. qof islaama dilaya. marka waxaan leeyahay ilaahay ha laga boqo ilaahay ha laga cabsado. maskaxda ha laga shaqaysiiyo. ha la joojiyo dhiigga islaamka ilaahay ma banaynina. khaaf rabbukum baan leeyahay khaaf rabbukum ilaahay ka cabsada. intaas kaliya baan ka hadlayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ummadda reer Cagaar waxaan maxay ahaydey ugu tahanideynayaa inay dagaalkoodii xakameeyeen oo ay dagaalka joojiyeen oo laga heshiiyey intii dhimatay. waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo. intii hore yaa nin kale lagu darin. nabadda wax dhaama ma jiraan wax nabadda dhaama ma jiro. marka waxaan leeyahay maxay ahaydey xagga allah sacimadna waxaan leeyahay war muusow dagaal dambe ha soo qaaday. maxaa ka faa'iidi maysid akhriya duubaad ku seegtay. halkaaga naga joog. midda kale maxay ahaydey reer galmudug dagaalka joojiya. war dagaalka hala joojiyo dhiigga islaamka hala joojiyo. والعياذ بالله waxaas oo kale wax la arkay ma aha
سبحان الله وأن سبحان الله توشي ديك إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.